kooxo careysan oo ku hubeysan bangado ulo iyo waxyaabo kale waxyeelo xoogan u geysan kara dadka ayaa shalay gabaldhici kusoo xoomay goobo ganacsi oo leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Sweden ee gobolka Western Cape ee dalka Koonfur Afrika ilaa hadda ma cadda khasaaraha soo gaaray Soomaalida waxaana goobtaasi u jirta magaalada Cape Town 350 kilomitir iyadoo saxaafadda Koonfur Afrika ay si weyn u hadalhayaan arrintaasi maadaama dukaamada la boobay ay ku jiraan dukaamada waaweyn ee leeyihiin dadka cadaanka ee laga tirada badan yahay balse saameynta badan booliska Koonfur Afrika ayaa la arkay iyagoo soo buuxdhaafiyay dukaamada Soomaalida kuwaas oo difaac xoogan soo dhigay dukaamada Soomaalida ay leeyihiin balse Soomaalida ayaa isweydiinaysa wajiga cusub ee lagu arkayo booliska Koonfur Afrika inay ka dhabayeen ballanqaadadii maalmihii u dambeeyay sheegayeen taasi oo ahaa inay difaacayaan hantida Soomaalida Koonfur Afrika waxaana la arkay booliska oo ku dhaaranaya in qofkii waxyeelaya Soomaalida Koonfur Afrika sharciga la horkeenayo isbitaalada waaweyn ee magaaladaasi ayaa laga tiro badan oo dhaawac ah kuwaas oo isku buurtay markii booliska ay ku fureen sunta dadka ilmeysisa iyo xabadaha canjirka waxa kale oo xabsiga loo taxaabay dad iyaga lagu tuunsan yahay inay arrintan ka dambeeyeen iyadoo adeegsanayaan hab siyaasadeed maadaama dalka Koonfur Afrika oo dhawaan ka dhacayo doorashada guud ee dalka Koonfur Afrika Soomaalida Koonfur Afrika ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya wada shaqeynta booliska ee la yeelanayaan iyadoo TV-ga caalamiga Universal waxa idin soo tabiyay ganacsato Soomaaliyeed iyo booliska Koonfur Afrika oo muujinaya isdhexgal bulsho kuwaas oo ka sameeyay magaalada Cape Town iyadoo halkaasi ay marti ku ahayeen saxaafadda gudaha dalka Koonfur Afrika iyo TV-ga caalamiga Universal Maxamed Deeq Muuse Nuur Deeq Darajo Universal TV South Africa